بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن ومركله iyo barnaamijkeeni waa noloshaada oo halkaan idin kala socodsiin jiray tababare Cabdiladiif Xirsi xalqadii hore waxaan uga soo hadalnay attitude maxaa la yiraahdaa ama adduun araggu maxaa la yiraahdaa waxaan soo sheegnay adduun arag in la yiraahdo qaabka dadku inta badan ay u eegayaan ama ay u fahmayaan ama ay u tarjumayaan waxyaabaha kala duwan ee ku xeeran ay la kulmayaan waxaas u noocay rabaan ha noqdaan waxaan sidoo kale soo sheegnay adduun araggu waxa uu muhiim u yahay qofku sida uu wax u eegayo oo waxa halkaan inoo ku soo tusaaleynay adduun arag waxa la yiraahdaa ama waa muraayada qofku dunida kale uu ku eegayo marka maanta waxaan ka hadlaynaa ama xalqada xigta waxaan uga hadlaynaa sidee muraayada qofku dunida uu ku eegayo loo nadiifiyaa si qaybta wanaagsan ama qaybta sami uu wax uga arko halkan marka waxaan ku soo qaadanaynaa saddex qodob oo muhiim ah oo runtii aan isleeyahay haddaad ku dhaqanto ama haddaad qaado wax weyn ayay ka tari karaan ama ay ka bedeli karaan sida aad wax u eegayso si ay isku bedelaan waxyaabaha markaa yacni aad la kulmayso qodobka koowaad wuxuu leeyahay mar walba waxaad ku dadaashaa ama waa inaad yacni eegtaa dhanka positive-ka ee nolosha waa inaad eegtaa يعني wax walba waxay leeyihiin waa inuu la soconaa negative iyo positive bay leeyihiin mar walba waxaad ku dadaashaa shay walba inaad dhanka sami ama dhanka togan inaad ka fiiriso ku dadaal marka waa qodobka koowaad qofka aad arkaysid waxaa laga yaabaa inuu leeyahay ceebo iyo waxyaabo uu ku wanaagsan yahay waa inaad qaybaha wanaagsan eegtaa waxa aad arkaysid waxaa laga yaabaa qaybo taban iyo qaybo togan inay leeyihiin waa inaad qaybaha togan eegtaa marka qodobka koowaad waxaan leenahay shay walba waa inaad ka eegtaa qaybta wanaagsan waa inaad ka eegtaa geed qodobka labaad ee aan is leeyahay haddaad ku dhaqantood isticmaasho noloshaadana aad ku dabaqdid wax badan buu ka tari karaa bedelka adduun aragga wuxuu yahay see the bigger picture yacni inaad mar walba eegto sawirka weyn inaad eegto waxyaabaha yaryarkaad aad u jeedeed isha aad u arkayso waxaa jira wax ka weyn baa jiro waxa yareed aad maqlayseed yacni aad la kulmayso waxaa jira wax ka weyn oo ka sarreeyaa jiro marka waxyaabahaas yaryarka inaadan naftaada ku mashquulin oo aad u eegto sawirka weyn ama dhacdada weyn inaad eegtid waa untaana waa qodob waayo mar walba inta ay la eg tahay waxaad arkayso ayay la eg tahay intaad gaari karto haddii aad tahay qof arka ama eega waxyaabaha un iska yaryarkaa ee nolosha agtiisa daadsan waxaa laga yaabaa inay kaa xanibaan waxyaabo waaweyn ood arki lahayd inay kaa xanibaan baa laga yaabaa marka see the bigger picture waxa weyn waa inaad aragtaa good qodobka saddexaad ee u dambeeya ee xalqadan maanta aan kusoo qaadanayna wuxuu yahay dadka negative-ka ama dadka taban ama dadka leh afkaaraha taban waa inaad ka fogaataa yani dadku waa laba nooc qofna waa positive oo mar walba ay wuxuu sitaa afkaar iyo aragtiyo iyo muuqaal positive uu sitaa qofna waa qof wata afkaar negative iyo aragtiyo iyo muuqaal negative marka dadku way isa saameeyaan mar walbana adigu waxaa tahay halkaad ku nooshahay siday tahay baad adigu tahay haddii halka ay kugula nool yihiin dad negative ama sida yacni negative-ka u fakera way ku saameynayaan marka qodobkani wuxuu leeyahay dadka negative-ka afkaaraha negative-ka ee watee wax duminayay aan waxba dhisayn waa inaad iskaga fogaataa waayo waxaa lagu leeyahay bini aadamku waa sida geedkan suufka loo yaqaano kale tusaale haddaad soo qaadato suuf qallalan oo aad dhigta meel biyaa waxaa hubanti ah biyahaas inuu nuuga ayaa hubanti ah marka adoo nadiif ah oo afkaar positive wato aragtiyo positive wata haddaad ku dhex milanto ama aad ku dhex darsanto dad wada negative hubanti waxaad noqonaysaa adiguna negative baad noqonaysaa marka dadkaana waa inaad ka fogaataa si guud marka xalqadan haddaan soo koobno waxaan ku sheegnay saddex qodob oo runtii aanu is leeyahay wax badan bay ka tari karaan ama ay ka bedeli karaan hab fikirka iyo adduun aragga qofka qodobka koowaad waxaan ku sheegay qofku mar walba inuu dhanka positive-ka uu wax ka fiiriyo ama dhanka positive-ka uu u fekero qodobka labaadna waxaan kusoo sheegay mar walba qofka inuu eego sawirka weyn waxaa hubanti ah waxyaabaha yaryarka aad arkayso wax ka weyn baa jira marka waxa weyn waa inaad eegtaa qodobka ugu dambeeyana waxaan ku sheegnay dadka negative-ka ama taban afkaaraha taban wata dadkaa waa inaad ka fogaataa ama aad ka kortaa ama aad ka sikataa qaybtaana halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa intaanu xalqada xigta ku kulmi doono waxaan idin leenahay asalaamu calaykum